gudoomiyaha gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali ayaa maanta si rasmi ah uga wareegay qalab isboorti qurbo-joogta gobolka Saraar oo ugu soo deeqeen xulka gobolka Saraar oo la filayo inuu ka qayb galo koobka gobolada dalka oo 20 bishan ka bilaabmi doona magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. munaasabad ballaaran oo loo sameeyay wareejinta qalabkan ayaa ka soo qayb galeen maamulka gobolka Saraar, isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saraar, qurbo-joogta gobolka iyo marti sharaf kale oo badan. ورئيس isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Saraar Xamse Jaamac Cabdullaahi ayaa ka xog waramay waxqabadka wasaaraddiisa isagoona sheegay in xulka gobolka Saraar ay diyaar u yihiin inay natiijo wacan ka soo hooyaan koobka gobolada dalka. aadan Cadiid oo ka mid ah qurbo-joogta gobolka Saraar horena uu ahaan jiray ciyaartoydii cuslaatay ee gobolada Togdheer iyo Saraar ayaa ku ammaanay maamulka gobolka Saraar sida ay ugu hoolan yihiin horumarinta gobolka, waxaana uu sheegay inay noqon doonaan markii ugu horeysay ee ciyaartoyda gobolka Saraar ay soo gaarsiiyaan agab ciyaareed. marka hore gobolka Saraar ciyaaraha ku soo ciyaaraysan waxa lagu rajaynayaa inaad ku soo guuleysataan oo magaca gobolka iyo kooxda aad kor soo qaadaan kana mid noqotaan sidii kooxda ciyaaraha gobolka ka qayb galay. annaga ku kalsoon inaa awoodda leeyihiin kiina kartaan gudoomiyaha gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali oo isagu soo gudbiyay munaasabadani ayaa uga mahad celiyay aadan Cadiid sida hagarlaanta ah oo garab taagan yahay dhalinyarada iyo ciyaartoyda gobolka Saraar. maantana ciyaartoyda gobolka taageero buuxda u bixiyay aad iyo aad baan u mahad celinaya waxaan rajaynayaa isagoo aadan marka hore ciyaartoyda ka mid ahaa iminkana inuu sii wadi doono inta ciyaartoydu heer gaari doono. waxaan filayaa heerkan ka sii wanaagsan baan rajaynayaa inuu gaaro ciyaartoyda gobolku. si kastaba ha ahaatee qalabkan isboortiga la soo gaarsiiyay ciyaartoyda gobolka Saraar ayaa wax weyn ka tari doonta baahida agabka ee dhalinyaradu u qabaan. Cabdi Faarax Abdullaahi, telefishinka caalamiga ee Somalisat, magaalada Caynaba.